Oqaasha iyo haweenka deegaanka Codale degmada Qorulug oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxay cabasho ka muujiyeen inaanay helin adeegyada aasaasiga ah ee noloshooda ku xidhnayd dadkani oo ahaa dadkii ay abaartu dhaafisay xoolihii ay ku asturnaayeen. Waxgaradka ayaa xukuumadda madaxweyne Axmed Siinayo ku eedeeyay inaanay soo gaarsiin kaalmooyinkii ay xaq ugu lahaayeen. Odayaashan oo arrimahaasina ka hadlayana waxaa ka mid ah hadalladoodii waynuhu gudbay halka lagu soo maray hadaan Codale nahay wax dawladda nooga yimi iyo wax gudida abaaraha nooga yimi hadaan nahay Codale iyo wax hadii la idmaayo gobol naga soo gaaray iyo wax cid kale nooga soo gaaray midna ma jiro ilaa degmo dadku isaga dadka deegaanka isku tashaday jaaliyadihiisii dibadda jiray baa naafo qaatay. dawladda maanta waxa shacabkeedu uga baahan yahay deegaanka Codale looga baahan yahay xoolihii ay biyaha u qoday waa dhamaadeen dadkii xoolaha cuni jireen baahi bay halka la farfadhiyaan oo lu tuban yihiin wax hay'ada iyo wax dawladda wax ka soo gaarina ma jiraan waa runtooda anna idin ma dawaaba laga yaaba waayo kuma hargeysa waayo ma ina sanaya ma jira dadkaan ugu xoolo boqolkiiba waa dhinteen dadku waa cayd dadka qaar baa 7 neef u hadhay waxaanu u baahanahay si degdeg ah in loo soo gaadho magaalada Codale baahida taala ayaanu u baahanahay madaxweyne inaad si degdeg ah hay'adaha caalamiga adiga xukuumadda aan u baahanahay si degdeg ah inaad u soo gaadho dadka Codale ee baqtiga ah aad u soo gaadho ayaanu ka codsanaynaa tabashada odayada deegaanka reer Codale ku cawdeen tabashada guud ee ay muujiyeen waa la qabnaa deegaanka waa deegaan ballaaran waxa ku dhacay abaar tibaasi xoog loogu dhacday dadkii waa caawiyay dadku dad reer miyiga buu ahaa dadku maanta baaqan jeedinayna wuxuu yahay xukuumadda waxaan ka codsanaynaa iyo gudida abaaraha inay kaalmo degdeg ah oo dib u dejin iyo ma garanaysaa dadku wixii ay ku noolaan lahaayeen iyo barnaamijyada ageesta kalena maayirka degmada Qorulug ee gobolka Boole Maxamed Cumar Farax Jarkunaman ayaa waxa uu ka marakacay inay baahiyaha ay waxgaradka deegaanka Codale tirsanayaan uu yahay mid dhab ah isagoona xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ugu baaqay inay kaalmooyin degdeg ah soo gaarsiiso deegaanka Codale iyada iyo deegaanka degmada guud ahaanba dad badan baa isugu yimi dad badan baa degan oo aad u badan xoolihiina ka baxeen oo aad uga baxeen waxa jira meel aan haba yaraato ha badnaatay cid tagtay jirin oo imika tuulooyinka degmada ka mid ah iyaduna waxay noqonaysaa boqolkiiba 3 bay noqonaysaa qorshaha WFP baahidaas waa mid jirta baaqaamada intay madaxweynuhu dabadii ay maray intaan anigu hubo guddaas shaqaynaysay arintaasu way jirtaa in aan caawimo imanin miisaan leh ama la taabtaa dad kale baahidu ay hayso way jirtaa waxaan leeyahay iyadoo qura maaha waa Codale waa degmada oo la oran karo boqolkiiba 30 baa imika si wacan ay u siiyeen hay'adaha deegaanka Codale oo dhaca 35 kiiloomitir dhinaca galbeed ee gobolka Boole ayaa waxa uu noqonayaa deegaankii uu ku dhacay miisaankii abaaxadda weynaa ee abaartii ku dhufatay guud ahaan bagayiga Somaliland sida ay waxgaradka ka soo jeeda deegaanka Codale ay ka dhawaajiyeen waayaan la iga ducaalay warbaahinta caalamiga ee Qorulug News deegaanka Codale degmada Qorulug ee gobolka Boole.